asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu saaxiibayaal dhegeystayaal iyo daawadayaalba ramadaan kariim waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii oo haadahan oo kale aad ka dhageysanayseen iyo aad ka daawaneyseenba warbaahinta city. Barnaamijkan waa barnaamij aan ugu talagalnay bishan barakeysan ee ramadaan intaan ku guda jirno. Barnaamijka waa barnaamij lagu magac daray caawe dadka agoonta amaba ciidsi dadka agoonta iyo masaakiinta ee aanan awoodin inay ciidaan. Barnaamijkan waa barnaamij taxana ah oo intaan bishan barakeysan ee ramadaan aan ku guda jirnay oo aad ka dhageysan doontaan barnaamijkan warbaahinta city. Sheekh Cabdiraxmaan Cabdullaahi oo aalo barnaamijkan inoo soo jeediyo xilligan oo kala saacadu markay soo gaarto ayaan ku soo dhaweynayaa. Sheekh Cabdiraxmaan soo dhawow ramadaan kariim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thumma as-salatu was-salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Ma ba'd. runtii walaal waa dhawahay ilaah baa mahad iska leh Allah halkaan inoo soo ogolaaday inaan isu imaano. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Taaniyan saad ka warhaysiin dadka na dhageysanayo maalmahan inta lagu jiro bishan barakeysan ee Ramadaan waxaan ka wadnaa warbaahinta city barnaamij lagu garab istaagayo ilmaha yatiimta ama agoonta iyo masaakiinta danyarta oo loo sameeyo ciidsiin ayaa waxaan u aruurinaynaa in qof kasto Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu xoolo Ilaahay u dhiibay in maalkiisa wax ka sadaqaysto dadkaas masaakiintana uu siiyo ama agoontaasi ay u taagan yihiin ragga soo awaawil barnaamijkan in ay garabka ay ku siiyaan agoontaas. runtii sadaqada agoonta la siiyane Ilaahay subhanahu wa ta'ala ajirkeeda aad buu u weyneeyaa wiliba maalkay dhahirisa buu yiri Nabi sallallahu alayhi wasallam wayna barakaysa rizqiga Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku waasiciyaa qofka wax sadaqaysanayo ajirkiisa fil aakhirah Allah tabaaraka wa ta'ala wuxuu ka yeelay ja'ala lil mutasaddiqiina baaban في الجنة يطلق عليه باب الصدقات. الله سبحانه وتعالى وحو سميي ددك متصدقين تا او wax sadaqaysta oo maalkooda yani wax ka bixiya ajirkooda Allah tabaaraka wa ta'ala jannada wuxuu u sameeyaa baab la yiraahdo yani baabul mutasaddiqiin waxaana ka galaya baabkaas dadka mutasaddiqiinta oo wax sadaqaysta ka galaya. sidoo kale ajirka qofka wax sadaqaystay Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuu haraynaya harkiisa oo gelinaya waa maalin uusan har jirin illa Ilaahay subhanahu wa ta'ala harkiisa ma ahane meel kale oo la harsado aysan jirin. marka walaalayaal agoontaas aan garab istaagno kafiil aan ka noqono qofkaas wuxuu awoodaha ku garab istaago hadii agoonta garab aad ka qabato nabiga kaleey salaatu wasalaam murafaqadiisa helaysa in aad jannada kula saaxiibto sababta nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay ana wa kaafilul yatiimi ka hatayna fil janna aniga iyo qofka agoonta ka kafaala qaada oo kafiil ka noqda biila u shaqeeya tarbiyeeya dharkiisa gada cunta siiya hagaajiya jannada aniga asiga sidaasan ku ahaanina buu leeyahay nabiga sallallahu alayhi wasallam ama darisaan buu ku noqonayna Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa wabeed ama guri ugu dhisaa jannada dhexdeed sidaas daraadeed Nabi Muhammad alayhi salaatu wasalaam la darisnimadeeda ayuu helayaa. marka walaalayaal ajirka laga helayo in agoonta kafiil laga noqdo wax sahlan ma aha aad ayaa ajirkeedu uu weyn yahay. Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu tilmaamay dadka wax baxsada habeen iyo maalin u taagan in maalkii Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku arsaaqay in ay wax ka bixiyaan in ajirkooda Ilaahay subhanahu wa ta'ala agtiisa u yaalo. Ilaahay subhanahu wa ta'ala inta badan dadka muuminiinta uu amaanay khaasatan dadka wax bixiya maalkooda Ilaahay subhanahu wa ta'ala dartii u bixiya. sidoo kale Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu amaanaya dad kale wuxuu leeyahay innal ladina yatluna kitaaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum dadka Ilaahay kitaabkiisa akhriya salaadana ooga waxna ka bixi waxa aan ku arsaaqna yarjuuna tijaratan lan tabur waxay rajaynayaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala xaqiisa ay ka rajaynayaan tijaaro oo aan baareenin
liyuwafiyahum ujuurahum wayasiidahum min fadlihi innahu ghafuurun shakuur si uu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ugu oofiyo ajirkooda oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ugu daro fadligiisa ilaan ilaahay subxaanahu wa tacaala waa alla dambi dhaafid badan oo shakuurun haddana mahadiye badan waay marka walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala sidaas buu u ammaanay dadka xooga yar xoolaha haysto ilaahayna wuuna amrayaa amar baana sii dul saaran marka walaalayaal agoontan aan dul istaagno oo loo samaynayo ciidsiinta ilaan waxaa dhici karto ilmo agooman ah oo aabbo uusan u joogin hooye u joogin qaarkood aabbo uusan u joogin hooye kaliya iskaga daalaa dhicayso marka waxaa la rabaa ilmahaas in yacni aan u noqono ama aan u bedelno aabbihii booskiisa sababtoo ah qof kasta waxaa la rabaa oo damqanayo oo waalid leh oo wax dhalay in yacni ilmihiisa soo aaga fikirayo oo kale yatiimtana inuu aaga fikiro sababtoo ajir weyn buu helaya ilaahay subxaanahu wa tacaala ilmaha anugu aan dhalnay nafaqada aan ku nafaqayno ama biilka aan ku biilno oo ilaahay ajir noogu siiya iska dhaaf qof kale agoon ah oo maskiin ah haddii wax siiso way ka sii daran tahay marka walaalayaal agoonto sidaa loo garab istaagana waxaa laga helaa qaatumo fiican inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala cimrigaada uu ku dhameeyo marka insha allahu sadaqada ala soo daadago yaan la baqiilin maalkana sadaqada ma dhammayso way ku kordhisaa ilaa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay ma naqasa sadaqatun min maalin bal tuziiduhu bal tuziiduhu sadaqada maalka ma dhammayso iska wadaaf inay dhammaysee way zaa'idisaabo inay kuu balaariso maalkaada uu kuu barto risqigaada uu kuu balaarto cimrigaada ilaahay uu kuu barakaynayaa risqigaada iyo maxay dhaha maalkaada meelaad kala geysidad waynaysaa waa haddii uu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku waafajiyo oo ilaahay dartii u bixiso marka kunka shilin maanta ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku siiyey birito wuxuu kugu noqon karaa yacni musiibo kugu noqon karaa ilaan su'aal baa kaaga dambayso maalkan haddii uu xalaal yahay su'aala laga weydiina haddii uu xaaraam yahayne ciqaabtiisu way ku taalaa meesha ka kasbat waa lagu weydiina meesha ku bixisuna lagu weydiina marka waxaa la rabaa dadaa jiro oo mubadiriin ah oo yacni ku dhildhiila maalka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyey aanan ku bixinaynin meeshuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ugu talagalay marka qof kastoo muslim ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala hanti uu dhiibay waxaa la rabaa maalkiisa meel fiican inuu dhigto ilaahay subxaanahu wa tacaala uu amaahsado ilaahay haddii amaah fiican aad agtiisa dhigato biri agtiisaad ka helaysaa iyadoo tii maalintii aad dhigatay mid ka weyn oo ka ajal balaarana marka insha allahu qof kasta oo muslim ah oo dadka muslimiinta ka mid ah waxaan ku boorinayaa maalkooda in ay dhigtaan meeshuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ugu talagalay haddii ay tahay mid yacni masaajid lagu dhisaayo haddii ay tahay dad masaakiin mid lagu garab istaagayo haddii ay tahay mid agoon lagu garab istaagayo waxaa laga rabaa in yacni meel fiican aad maalkaada gashato sababtoo ilaahay subxaanahu wa tacaala ajir balaaran buu kaa siinayaa laakiin haddaad ku baqiisho oo meeluusan ilaahay subxaanahu wa tacaala raalli ka ahayn aad ku bixiso ciqaabtiisana waad arkaysaa masiirkaada meesha oo ay ahaan doontana waad dareemi doontaayo maalinta qiyaam markii la tago ayaad arki doontaa marka insha allah walaalayaal agoontaas aan dul istaagno ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaana amraayo qof kasta oo ilaahay subxaanahu wa tacaala hantii u dhiibay waxaan ku dardaarminayaa in ay agoonta u noqdaan haddii rag muxsiniin ay jiraan kal abi raxiim oo kale hadday gawar muxsinad ay jirtana inay u noqoto hooyo naxariis leh oo kale marka hooyadu way taqaanaa ilmaheeda meesha laga haysto iyo waxay ku ciidi karaan iyo waxay u baahan yihiin oo dhan way ogtahay marka insha allahu qof kasto waxaan ku dardaarminayaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala dartiisa oo kunkiishiina uu ku baxsado haddii maskiin aad wax siiso ilaahay meel uu kuu dhigaya haddii agoon aad siiso ilaahay meel uu kuu dhigaya biri waxaad arkaysaa iyadoo ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa ku taalo sheekh cabdiraxmaan cabdulaahi wuu mahadsan yahay fadliga ay leedahay bishan barakeysan ee ramadaan iyo sadaqada fadligeeda ay leedahay bishan barakeysan in la baxsado ayuu noo sharaxay sheekh cabdiraxmaan cabdulaahi barnaamijka ayaan ku guda jirnaa saaxiibayaal dhageystayaal iyo daawadayaal barnaamijkan waa barnaamij allaaba intaan ku guda jirnahay bishan barakeysan ee ramadaan halkaan ka soconay barnaamijkan waa barnaamij lagu magac daray ciisi dadka agoonta ah ee aanan awoodin inay ciidaan dadka agoonta ah iyo masaakiinta iyo wixii la mid ah ee aanan awoodin inay ciidaan aan ciidsiino aan kaalmeyno aan waxsiino aan ka farxino dadkan agoonta ah ee iskugu jira masaakiinta iyo wixii la mid ah barnaamijka ayaan ku guda jirnaa qaybihii hore ee barnaamijka dhageystayaasheena
waxay soo wici karaan amaba ay kusoo dirsan karaan sadaqada amaba kaalmada ee ay rabaan in ay ugu taraan amaba ay soo gaarsiiyaan dadka masaakiinta ah ee agoonta ee danta yar ee aanan awoodin. lambarka sadaqada waa eber 6 lambarkaas kusoo hagaaji waa lambarka sadaqada amaba tabarucaadka ee dadka danta yar ee agoonta iyo masaakiinta iskugu jira ee aanan awoodin inay ciidaan. lambarka tirsigiisu yahay eber 6 lambarkaas ayaad kusoo hagaajin kartaan wixii aad isleedahay waxaana kaa go'a intaan ayaa maskiintaas walaalaha ah oo ugu tala kartaa. barnaamijkan waa mid soconaya intaan ku guda jirna bishaan barakeysan ee Ramadaan. haadahan oo kale ayaadna ka dhageysan doontaan warbaahinta City iyo aad ka daawan doontaan City Somali TV and Radio. Sheekh Cabdiraxmaan Cabdullaahi ayaa alla barnaamijkan haadahan oo kale oo inoo soo jeediya fadliga ay leedahay bishaan barakeysan ee Ramadaan iyo waxa mudan in la baxsado sida sadaqada oo kale. eber 6 lambarkaas kusoo hagaaji wixii ka go'a $1 $1 $2 $3 $5 $10 $20 $20 wixii ay isleedahay intaan walaalaha muslimiinta ee agoonta iyo masaakiinta ah waxaad isleedahay ku caabi lambarkaas ayaad ku soo diri kartaa oo tirsigiisu yahay eber 6 lambarkaas ku soo hagaaji eber 6 waxaad naga soo wici kartaan oo aad barnaamijka nagala soo qayb qaadan kartaan leelanka cilad ayaa ka jirta eber 6 lambarkaas soo wac wixii aad isleedahay in walaalaha masaakiinta ama agoonta ay isleedahay inaad markaas ugu kaalmeyso lambarkaas waad soo wici kartaan dhageystayaal iyo daawadayaal intaba eber 6 eber 8 eber 6 eber 8 waa eber 6 lambarkaas soo wac si aad nagala qayb qaadato barnaamijka ee aad ku caawiso ama aad u caawiso dadkan danta yar agoonta iyo masaakiinta iskugu jira ee aanan awoodin inay ciidaan. waxaad soo wici kartaan eber 6 eber 8 lambarkaas soo wac si toos ah lambarkaas u soo beegso soo wac wixii ducana Sheekh Cabdiraxmaan Cabdullaahi ayaa inoo jooga wixii duca iyo wixii ay isleedahay walaalaha agoonta ee masaakiinta ayaad ugu tala gashay. waxaad soo wici kartaan eber 6 eber 8 waa lambarka sadaqadana waxaad ku soo hagaajin kartaan Somtel iyo Hormuudba iyo Dahab iyo EVC Plus intaba eber 6 lambarkaas ayaad ku soo beegsan kartaa oo aad markaas ugu soo qayb qaadan kartaa sadaqada waa eber 6 lambarkaas ku soo dirso EVC Plus oo Hormuud ah iyo Dahab oo Somtel intaba uu leeyahay. barnaamijkan ayaan ku guda jirnaa. barnaamijkan waa barnaamij soconaya bishaan barakeysan xilligan oo kale ayaad warbaahinta City aad ka dhageysan doontaan oo aad ka daawan doontaan inta ka hasan bishaan ilaahay aanu simo ilaahay anaga dhigo kubi gaara. barnaamijkan waa wuxuu soconayaa dabcan Sheekh Cabdiraxmaan ayaa idin sharaxa doona inta uu barnaamijkan soconaya. eber 6 lambarkaas ku soo hagaaji waa lambarka sadaqada caawino aan caawino dadka danta yar ee aanan awoodin inay ciidaan aan caawino waa dadka danta yar waxaan lambarka ku caawin karnaa eber 6 lambarkaas ayaana ku caawin karnaa oo aad markaas aan ugu soo diri kartaa lambarka tirsigiisu yahay eber 6 lambarkaas EVC Plus oo Hormuud iyo Dahab oo Somtel inta buu leeyahay. lambarkaas ku soo dirso wixii aad leedahay intaana ka go'aan $1 haysan 25 senti isleedahay uu yar yahay 50 senti isleedahay uu yar yahay $1 $2 $3 $4 $5 lambarkaas eber 6 lambarkaas ku soo dir
waxaad si toos ah noogu soo wici kartaan eber 6 وإبر لحال تضرب إبر سديت أفرتني كوس ديتن إبر لحال تضرب إبر سديت أفرتني كوس ديتن لمبر كان صوّع ولمبر كان سيت توس هذا صوّع كرته والبرنامج كان غلس وخيب خان كرته إبر لحال تضرب إبر سديت أفرتني كوس ديتن لمبر كان صوّع إبر لحال تضرب سديتني كوس تضرباتن لتضرباتن ولمبر كصدق هذا لو تلقى إن لو عابي دتك دنتير أغوانتا يوم مساكين تسكوجر أنا عابنا دتك دنتير أنا أبوذين إني عيدان برنامج كان وبرنامج صعوني وحلب حصلنا صدقة أو فل بدن يا شيخ عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. runtii wax la baxsado waxa u fadli badan bisha Ramadaan hadan lagu sii baxsado yani agoonta taarta daran iyo masaakiinta sababta Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay wama anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khayrur raziqin. waxa la waxaad bixisaan oo maalkiin aad ka bixisaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu idin badal yeelaya Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu balan qaaday in ajirka sadaqada oo mudaacaf uu ka dhigayo sababtoo ah dadka wax bixiyay waxay helayaan bi'acdam mimma anfaqu ad'afan kathir wixii ay bixiyeen wax ka weyn wax ka badan oo ka laab badan xagga ajirka ay helayaan sababtoo Ilaahay subhanahu wa ta'ala asiga ugu talagalay waxa la rabaa marka in laga faa'iideysto qof kasto oo warkeena maqlaayo sidaan baahiniba in yaani uu ka faa'iideysto agoonta iyo masaakiinta meeshan laga baahinayo tusaale hadda waxa lagu dhahay gabadha yariista oo agoonta waxa dharkeeda u gadi kartaa la yiri maxay dhahan $46 goona iyo surwaal iyo xijaab oo 18 lagu qiimeeyay shaati oo $13 lagu qiimeeyay iyo kabo $15 lagu qiimeeyay $46 ayaa u dharsiin karta ama u ciidsiin karta gabadhaas miskiinta oo agoonta sidoo kale wiilka oo agoonka waxa dharsiin kara ama ciidsiin kara surwaal oo $12 lagu qiimeeyay shaati ko 12 lagu qiimeeyay kabo $12 lagu qiimeeyay marka qof kasta oo muslim ah oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala xoolo u dhiibay hadana Ilaahay qalbigiisa iimaan geliyay baaqitaankan meeshan ka wadno hadii uu maqlo ha oo la soo dagdago sadaqadiisa sababta meesha lagu bixinayo waa meel fiican sida agoonta oo kale masaakiinta oo kale dad iska danyar oo waxba haysanin maanta maalkaada dad ku nafaqayso adina biri maanta maalin oo baahay badan tahay buu Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku nafaqaynaya maanta qof baahan hadii aad wax siiso Ilaahay subhanahu wa ta'ala biri badalkeedu ku siinaya marka insha Allah sadaqada walaalayaal aan la soo dagdagno qofka bini aadamka nabi sallallahu alayhi wasallam xuleeya ma tasaddaqa ahadun bi sadaqatin min tayyibin yani ahad ma sadaqayso sadaqa oo yani kasabkiisa halaalka uu ka bixi ilaahina ma aqbal wax wanaagsan ma ahan wax kale ma aqbale illa akhadaha ar-rahmanu ilaahi subhanahu wa ta'ala ba wuxuu u qaaday gacantiisa midigta uu qaadaya markaas uu ilaahi subhanahu wa ta'ala xuleeya nabi alayhi salaam haday tamir tahay فتربو في كف الرحمن وحي كوريسا الله رحمن ككفكيسا أي كوريسا ثم حتى تكون أعظم من الجبل إلا أي كان خطو متبور كبير مركاسا أسيغا ويعني وأركضونا أجر كيدي يوم حيدان وحو شقيستي وحو بحصد يالها أول مرة لو سي إني سن إسلائكين كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة si ilaahay yaani wuxuu u barbaarinaya sida ahadkiina oo hashiisa qurbiciisa ama faraska yariiska u dhashay soo u barbaariyo oo kale ayuu ilaahay subhanahu wa ta'ala u barbaarinaya marka walaalayaal sadaqada sidaan u sheegnay waxay damisaa al khati'at gafafka ay damisaa iyo carada qofka bini aadamka ka dhacda sababta qofka inta badan hadii uu xanaaq badan yahay caradiisa ay badan tahay sadaqadiisana ay badan tahay ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ku dhoora uu caradaas u aagdaminaya sadaqada marka wasadaqatu tudfi al khati'a kama yudfi al ma'u an-nar sadaqada waxay damisaa gafafka iyo khalalaadka qofka bini aadamka ka dhaca sida biyaha ay dabka u damiyaan oo kale marka walaalayaal sadaqada ajirkeeda ugu weyn waxa kamid ah in uu maalkaada uu ku barako waayo ziyadatu rizqina athelaysid iyo ilaahay subhanahu wa ta'ala in uu dabeecadaada u wanaajinayo Allah tabaaraka wa ta'ala ya ina amray xadiis qudsi buu ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ku leeyahay ya ibn aadam anfiq alayk bihi maalka adiga lagu nafaqeeyo marka hadii uu ilaahay mar uu ku amrayo marna uu ku leeyahay anfiqu mimma razaqnakum marna anfiqu ku leeyahay maalka bixi marka aad bixiso lagu arzaaqa marka inaan isku dhadajinayo wax fiican ma aha marka insha Allah naartana aan kaga dhoorsano maalka kiisa yar hadii aad $1 bixiso iyo hadii aad $0.5 bixiso sadaqan waa baxsatay
naartaad uga dhowrsanaysaa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay ittaqu nnaara walow bishiqi tamra naarta ka dhowrsada timir jeexeedaba ilaaha ka dhigay macnaa timir wasankeedaba ilaaha ka dhigay waa jeexaas timirta miisaankeeda in la egbo ilaaha ka dhigee wax baxsada marka shaydaanka hal iska naaro iyo shaydaanka idin gaadin yousan idinku boorinin inaad faqiir noqonaysid beentiisa waa faqiir noqomaysid ilaahay subxaanahu wa tacaala maalka asigaa bixiyo asigaa dhiibo ilaahay kanzigiisana ma dhammaado addoommadiisa oo dhan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu kala deeqaa marka insha allah shaydaankaasi iska naarno qof kasto ilaahay subxaanahu wa tacaala wax uu dhiibo maalkiisa haladaa daga sadaqada inuu baxsado bishaan ramadaan maba ugu sii jirtaba nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa ajwadu nnaas dadka midka ugu deeqsisan buu ahaa weliba asaa bixin jiray yacni cid ugu fiican ma aysan jirin deeqsinimadiisa haddii maal la bixiyo iyo haddii yacni cibaado tahay nabiga calayhi salaatu wasalaam aad ugu dadaali jiray bishaan marka walaalayaal bishaan waa bishii yacni fadliga badneed saad ka waraysiin maanta waxay maraysaa 10 waa sii socotaaye jaaniska waxayrisaa ka dhimane insha allah aan ka wada faa'iideysano qof kasto bishaan ha ugu faa'iideyso wixii sadaqaad uu baxsana iyo wixii maal uu dhiibanay bishaan fadligeeda ha ugu faa'iideysto shaydaankan iska naar ku mushil maanta aad baxsato ilaahay dartii u baxsato ilaahay hortiisa ku yaalaan wax ka laga nusqaaminayo mal wax laga dulminayo mal waad ka helaysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiis weliba maalintii adduunyada aad joogtay askii aad bixisay mid ka fadli badan ka khayr badan ayaad helaysaa maanta ku mushil aad bixiso agtaada kunuu ka yahay laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa ka helaysaa asigoo kunkii ka khayr badan kana ajir weyn marka insha allah aan la soo daadakno sadaqada ilaahay subxaanahu wa tacaala ajirkeedu waa ku laabaya haddii yacni aad wax baxsa waysidni kolayto fadaa'isheedu way ku dhaafaysaa bishaan biriya shalay galay doontaa bishaan jaanis waxaa dhici karto sanadkan sanadkiisa ama ramadaankan ramadaankiisa inaadan gaaraynin baa dhici karto waxaa tusaale ku ah haddii aad xasuusato soonkii hadda la soo dhaafay rag kula noolay inay jireen ay kula cibaadaysteen soonka oo soonkaas ay kula cibaadaysteen salaatuleil badan isla tukateen oo taraawiix isla tukateen maantana faraadan ku haynin oo carada ka hoos maray waxa dhici karta rag kula cibaadaystay sanadkii hadda oo haddan yacni soonka xanuun dartiisa sariir la saaran aan kula soomoon cibaadadii ka helay marka haddii adiga ilaahay subxaanahu wa tacaala jaanis uu ku siiyey sadaqadaas insha allah ka soo faa'iideyso wax alla waxaad awoodid nuska dollar lambarka oo lagu baahiyo oo furihiisa todobada oo yahay 81 20 ku soo tuura nus dollar halka dollar $2 $5 $10 waxaad awoodid waa gabadha si lagu sheegay $46 u ciid siin kartaa lagu dhahay wiilkan $35 labadaas qof gabar waxa qaadan karto hal aaba oo naxariis leh oo ilaahay subxaanahu wa tacaala qalbigiisa iimaan uu geliyay ayaa sida wiil iyo gabar uu asigu dhalay oo kale uu soo gaday kara gabdhahaas dharka insha Allah wax loo raadinayo waa ilmahaas agoonta aan la soo daadakana sadaqada insha Allah jazakumullahu khairan wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum asalaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Sheikh Cabdiraxmaan Cabdullaahi wuu mahadsan yahay barnaamijka ayaan weli bartamaha aga jirnaa barnaamijkan waa mid looga talagalay dadka agoonta ah ee aanan awoodin inay ciidaan ciidsi dadka agoonta ee aanan awoodin inay ciidaan sadaqado sidii hore sheekha u sheegayba sadaqada la bixiyo waxa ugu fadli badan bishan barakeysan ee Ramadaan waa fadliga ay leedahay bishan barakeysan ee Ramadaan wax la soo koobi kara ma aha sida oo sheekhu ugu dhawaajiba barnaamijkan aan ka faa'iideysano waa caawe dadka agoonta ah ee aanan awoodin inay ciidaan ciidsi dadka agoonta ah ee aanan awoodin inay ciidaan sadaqadu waa mid loo baahan yahay in la bixiyo weliba bishaan barakeysan ee Ramadaan fadliga ay xambaarsan tahay nus dollarka halka dollar $2 waa soo dirsan kartaa eber la xal 7 lambarkaas ku soo dir eber la xal 7 lambarkaas ku soo dir sadaqada yaraan iyo weynaan ma gasho sadaqada 25 senti nus dollar $1 $2 $3 $4 $10 gabadha muslimada ah waxay ku ciideysaa waa gabadha muslimada agoonta ah waxay ku ciideysaa waxa waaye waa $46 ayaa gabadha muslimada ee agoonta ayaa ciidsiin kartaa $46 ayaa gabadha agoonta ah ee muslimada ay ku ciidi kartaa wiilka muslimka ahna oo agoonkana waa $35 wixii ku ciidi lahaa waa $35 waa hal qof kaliya
hal qofood amaba hal qof oo hal shakhsi oo iimaan leh ayaa bixin karaa inta aan soo tibaaxnay inta aan sheegnayba waxa bixin karaa hal qofood oo iimaan leh ayaa bixin karaa marka wax walba waxay u baahan tahay horta in la isku dhiirigeliyo oo sheedaanka iska naarto sheedaanka wuxuu ku leeyahay ha bixin iska dhaaf macnaha waa Sheekh Cabdiraxmaan waa sidoo sheekha hore u sheegay marka aan ka faa'iideysano bishaan barakeysan sheedaanka waa la xiray macnaha meel uu xabis ku yahay marka fadliga ay xambaarsanta bishaan ka faa'iideysano lambarka lacagta lagu soo diri karo sadaqada waa eber 6 EVC Plus iyo dahab waa lambarka sadaqada eber 6 waa lambarka sadaqada eber 6 lambarkaas ku soo dir wixii aad awoodo halka dollar nus dollarka 25 senti $5 $10 $20 wixii aad isleedahay intaana ka go'da oo walaalaha agoonta ay masaakiinta intaana macnaha u diri kartaa oo u soo dirsan kartaa waxaan wax dhamaanaya ma sadaqadan ma dhamaan sadaqada waxa waay ajirkeeda uu ku soconaya ma dhamaanayso marka wili wax la sii bixiyana waxa uu fani badan bishaan barkeesan marka lambarkaas aan ku soo hagaajino wixii aad isleedahay intaana ka go'day intaan waad ku caawin kartaa walaalaha agoonta ee masaakiinta eber 6 waa lambarka sadaqada loogu talagalay in lagu soo hagaajiyo EVC Plus Hormuud uu leeyahay EVC Plus oo Hormuud ah ii dahab Somtel eber 6 ii dahab oo Somtel ah Hormuud EVC Plus inta buu leeyahay lambarkaas ku soo hagaajiyo lambarka soo wici kartan waxa waaye lambarka oo aad barnaamijkana nagala soo qayb qaadan karto waxa waaye eber 6 lambarkaasna waad soo wici kartaa si toos ah barakada amaba sadaqada aad rabto inaad soo hagaajisid lambarkan soo wac eber 6 lambarkan soo wac wixii aad isleedahay walaalaha agoonta ee masaakiinta ah waad ugu tala gashay lambarkan soo wac tirsigiisu yahay eber 6 lambarka sadaqada eber 6 waa lambarka sadaqada fariimahana waxaad ku soo diri kartaan eber 6 asagoo fariimo ah iyo asagoo wicitaan inta waad soo wici kartaa fariimahana waad ku soo dirsan kartaa waad soo wici kartaa eber 6 soo wac fariimahana ku soo dir soo wac si aad ugala qayb qaato waxa aad soo dirsatay iyo ducada sheekha aad rabtay inaad ku ducooyo ducooyinka la ducoosanayna waxa ugu fala badan midda barakeysan ee bisha Ramadaan waliba marka la afuro xilliga marka la afuro sida hor sheekha ugu dhawaajiyo barnaamijkan waa barnaamij soconaya intaan ku guda jirnahay bishan barakeysan ee Ramadaan aan caawino aan ciidsiino dadkan danta yar ee aanan awoodin inay ciidaan ciidsi dadka danta yar ee aanan awoodin inay ciidaan waxaad soo wici kartaa oo aad barnaamijka nagala soo qayb qaadan kartaa eber 6 lambarka soo wac barnaamijka nagala soo qayb qaado eber 6 lambarkaas waad soo wici kartaa waxa lambarka fariimaha waa eber 6 fariimaha iyo wicitaanka intaba lambarka sadaqada la raba in lagu soo hagaajiyeen wixii Ilaahay ka soo qaaday iyo wixii aad isleedahay intaan waa ka go'da akoonkaaga intaan ka bixina waxaad ku soo hagaajin kartaa waa lambarka sadaqada waa dhagta fur lambarka sadaqada loogu talagalay in lagu soo hagaajiyo waxa waaye eber 6 waa lambarka sadaqada eber 6 aan caawino dadka danta yar ee aanan awoodin inay ciidaan barnaamijkan waa barnaamij loogu talagalay shaasha keer ciidankiisu yahay
uu soconaya bishaan barakeysan ee Ramadaan intaan ku guda jirnay fariimaha ayaan hal iyo laba saddex ayaan akhriinaa. Assalaamu calaykum, waa Burhaan Geedi oo jooga xaafadda Buulo Sheekh Barta caan shaqa ayuu leeyahay. Bahaweenta City waa idin salaamay, Ramadaan Kariim shiiqa iyo daadiyaha barnaamijkaba uu leeyahay. haddaan barnaamijkan ka hadlo waa mid barakeysan loo baahan yahay in la tabiyo wax lagu taro dadka aan awoodin inay wax ay sameystaan. macnaha wuxuu ula jeedaa inay macnaha ay farxaan ayuu ula jeedaa oo maran oo gacmahooda ay maran yihiin macnaha. marka $1 ayaan walaalahey muslimiinta ilaahay iga soo qaaday ayuu leeyahay $1. marka wuxuu leeyahay Burhaan jooga xaafadda Buulo Sheekh $1 ayay walaalahey muslimiinta ugu talagalnay. Sheekh Cabdiraxmaan ما شاء الله إله وأقبله نسخة $1 أو صباح سد بدل كيس وخير قوي إله سوقي إن شاء الله أسين دم بيجيس دم والد كيسن إله ضعفه بشهر رمضان وبركيسن عبادة إذا صوم كذا يصلاة إذا إله أقبل دمانتين إله نجا أقبل جزاكم الله خيرا. وطاي شيخ عبد الرحمن وماسين يقولي فريمها ين كوجد جرنا وطاي وسندس أوجوك تبي لهذا هاي وإذن سلامي سندس أوجوك تحافظه koowaad ayay leedahay $1 ayaan walaalaheyga aan u soo diray ay leedahay Sundus. marka Ramadaan Kariim way ku soo koobtay Sheekh Cabdiraxmaan. ما شاء الله إله وأقبل صدقة أي صوب حسنتين نسخة $1 أي صوب بحيث بدل كيس وخير قوي إله سوق ليو إلهي أولاد بار إله ودعو هداي أرضيته إن إله وحبر شذا وفضايو دنبي كذا يدنب والد كذا إله ضعف دمانتين دنبي كذا يدنب والدين كذا إله ضعفه صوم كي صلاة إله أنا أقبل إن شاء الله جزاكم الله خيرا. جزاك الله خير شيخ عبد الرحمن وماسية. برنامجك caawinta ama ciidsiidadka danta yar ayaan ku guda jirnaa. assalaamu calaykum waa Nafisa oo joogta xaafadda Horseed bay leedahay. City waa idin salaamay, Ramadaan Kariim ay leedahay. $1 ayaan walaalahey u soo wakiishtay bay leedahay saaxiibayaal iyo asxaabta ay dhageysanayso Sheekh Cabdiraxmaan. ما شاء الله إله وأقبله صدقة إذن إلهي مال كذا هو بركة عمر كذا إله هو بركة ورزق إلهي هو واسعيه دم بجد دم والد كذا إله ضعفه صلاة يصوم كي عبادة إلهي هك أقبل إن شاء الله دم مانتين إلهي هاي نجا أقبل عبادة جزاكم الله خيرا. وهجاك ودقيسياشين ومهسيهين لمبركة نصدقة إبر لحال تضبط ديتنيكو 7 waa lambarka sadaqada ee loogu talagalay in lagu caawiyo walaalaheena agoonta iyo masaakiinta iyo danta yarba. lambarka caawinaada ee walaalaheena aan ku caawinayno waa eber 6 Hormuud EVC Plus Somtel iyo Dahab intaba ha isdhihin lacagtan way yartahay 25 senti haddaad maalin walba bixiso wax badan buu qabanayaa. marka 50 senti halka $2 gabadha muslimada sida hore sheekhu sheegay $46 ayaa ciidsin kartaa. wiilka muslimkana waa $35. marka aan ka qayb qaadano aan caawino dadkan danta yar. eber 6 eber 6 Sheekh Cabdiraxmaan. إلهي أقبل إن شاء الله إن قف كستوح وبحصدي صدقة وبحصدي مالك إله وبركيه إن وحى إلهي سبحانه وتعالى درته وبحصدي إلهي وبركيه لنا هاي إن صدقة أن فضيق إلهي هاي آتي وبضنتها ملصقوي كرويل ببشان بركيسن إلهي سبحانه وتعالى نو أمانة دتك متصدقين تمركزته إلهي سبحانه وتعالى وحنوغير يا مغفرتي سيدا بداف كيسا الله تبارك وتعالى وحولي وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاذمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. مركول اليال إلهي سبحانه وتعالى دتك يعني متقين تأه وأماني وعيري وأقوى الذين ينفقون في السراء والضراء
kuwa yani wax bixiya markay barwaaqo ay ku jiraan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u nimciyey iyo markay abaarta oo haysaba markay barwaaqaysan yihiin maalkooda way bixiyaan markay dhibaato iyo abaar haysane way bixiyaan maalkooda ilaahay dartiisay u dhiibaan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu sii raacsiiyey walkaadimiina alghayda walcaafiina can innaas wili waxay qarinayaan ay qarsanayaan caradooda dadkan way iska cafinayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu jecel yahay dadka muxsiniinta marka walaalayaal wax hagaaji ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku hagaajinayo maalkaada hagaagso ilaahay asaa ku hagaajinayo sadaqa ka baxso maalka ilaahay asaa ku barakeynayo marna ha ku fikirin in haddii maalkaada aad wax ka dhibtay inuu yaraanayo marka walaalayaal insha allahu ilaahay subxaanahu wa tacaala naxariistiisaan ku helaynaa maalkan haddii aan bixino agoontaas aan la garab istaagno marka qof kastoo wax baxsaday ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ugu baryaynaa in uu bedelkeeda ilaahay uu soo geliyo xaqiiqan waana heli doonaa insha allah sababta nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi maa min yawmin yusbixu alcibaadu fiihi ilaa malakaan yanzilaan maalin ma jirto ay addoommada ay waagbaristaan ilaa haddii ay jirto laba malagaa soo degta buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam ama axaduhuma labadaas malag midkiisu waa ducina wuxuu leeyahay allaahumma acti munfiqan khalafan ilaahayo midka wax bixiye maalkiisa wax ka sadaqeeyey ilaahu bedelkiisa sii wax khayr qaba kan haystana kan kale waa hawaara wuxuu leeyahay allaahumma acti mumsikan talafan ilaahu kan haysta maalka in bixiye ku baqiilan ilaahay wax ka baabi'iyay marka insha allah walaalayaal maalka aan la soo daadagno gabadha maskiinta agoonta ah $46 ayaa ciidsiin kartaa lagu dhahay 46 ruux oo min $1 way u gadi karaan wiilka kadalika oo maskiinka oo agoonka ah asina $35 ayaa ciidsiin kartaa lagu dhahay 35 ruux oo ilaahay subxaanahu wa tacaala qalbigooda uu iimaan geliyay ayaa ciidsiin karto marka insha allah walaalayaal aan u soo daadagno sadaqadaas hal qofood hadduu qaatan ilaahay subxaanahu wa tacaala ajir buu ka siinayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala bedelkeedu khayr qabu soo gelinayaa laakiin shaydaan iyo nafa ku xariira ruuxi bini aadamka ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan kaga baryaynaa ummadda inuu ka qabto shaydaankan oo dhibka ku haayo ummadda dhibaayo khayrka dhanka mancinayo marka insha allah cuudu bilayso shaydaanka iska naar ilaahay u kaalmayso maalkana bixi go'aanso inaad bixisid shaydaanka markaas go'aan ka qaadatid asi waa meesha waa ku sandiloowa waa kaaga tagaya meesha laakiin adiga go'aanka ha ka yimaado inaad wax bixiso maalkaada aad wax ka sadaqayso laakiin inta bahawadaada aad raacaysid shaydaankaas uu ka xoog badinaya waana kugu shaqaysan doona marka insha allah sadaqada aan la soo daadagno جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطهي برنامج كان قد جرنا قيبه دحي برنامج قيبه ضمبنا وانتاغنا برنامج كان وامد سعونا يا بيشان بركستان حيلق انا وكله يا وربعين سيتي اذكر جيسن دونتان ارنا كداون دونتان سيتي سومال تي في ان راديو لمبرك صدقدا لوgu tala galay eber la xal todoba 82 waa lambarka sadaqada fariimaha hal ilo fariimood ayaa inoo taala ayaan waa akhrin doonaa eber la xal 82 eber la xal 82 EVC Plus idahab inta buu leeyahay lambarkaas waa lambarka sadaqada loogu talagalay in lagu caawiyo dadka agoonta ah ee aanan awoodin inay ciidaan eber la xal 82 eber la labo 82 waa EVC waa aan ilaahay waa Somtel waa idahab intaba waa uu leeyahay waa soo wici kartaan waa markaas wixii ugu tala gasheen dadkaas agoonta ah ee aanan awoodin inay ciidaan lambarkaas waad ku soo hagaajin kartaan waxaadna soo wici kartaan eber la xal 7 eber 8 lambarkan soo beegso soo wac lambarkan waa eber la xal 7 eber 8 eber 8 soo wac nagala qayb qaado wixii aad walaalaha agoonta ay masaakiinta jeceshahay inaad markaas uga qayb qaadato oo aad ugu tarto macnaha wax la baxsadanahay bishaan ay ugu fara badan $1 $2 $2 asdiin waa yartahay wax yar ma aha wax weyn waaye boos bay qabanaysaa marka asdiin sadaqada yaraan ma gasho $100 $10 ismid leh sadaqada yaraan ma gasho marka waxa waaye asdiin warbaahinta city waxa waaye xataa shaarka surwaalka jooga kabaha ah warbaahinta city waad keen kartaa waa laga qaabilayaa asdiin albaabka hadaad garaacdid oo aad shaarkan adoo bac ku wadid adgeesa xarunta ama lagu diimaa asdiin marka waxa waaye shaar ku dar laba shaar waaye marka asdiin waa lagu diimaayo halkan xabo shaarka ay surwaalkan joogan kabaha ay garantaan funaanadan hadaad qaadid aad keento warbaahinta city xarunteeda waxa waaye waa laga qaabilayaa waxa waaye ajir fiican oo tilisa
qofkii qof agoon ah waliba bil barakeysan ee lagu jiro inta ka farxiyo gacanta qabto carabgeey u soo labisay waxa waaye fadligiisa mid la soo koobi kara maaha marka aan ka qayb qaadano aan caawino dadkan agoonta ah ee aanan awoodin inay ciidan sadaqada yaraan ma gasho lambarka tirsigiisu yahay waa lambarka sadaqada waay eber 6 7 eber 6 lambarkaas waa lambarka sadaqada EVC Plus iyo Somtel oo idahab inta buu leeyahay waad ku soo hagaajin kartaa waxaad dadka jawhar ee waaxigeeda ku dhaqan ama ku sugan waxay naga soo wici karaan si ay lambarkan ay barnaamijkan uga qayb qaataan eber 6 eber 8 eber 6 eber 8 waa lambarka wicitaanka ah ee aad rabto inaad barnaamijka u qayb qaadato soo wac soo beegso eber 6 eber 8 lambarkan soo wac Sheekh Cabdiraxmaan gabagabadii barnaamijka ee ku guda jirna su'aasha ugu horeysa marka jawaabta ama fadliga bishan barkeesan ay leedahay iyo waxa agoontaas ay ku ciidalaayeen meesha noogu xusan bal noo dulmar aan gudanayno weli waxaan wadnaa barnaamijkii agoonta lagu garab istaagay runtii fadligeedana aad iyo aad ayaan uga hadalnaa maalmahan nabiga kaleey salaatu wasalaam waa inoo tilmaamay qofka bini aadamka waxa uu sadaqaystay sadaqadiisa bir inuu u baxsanayo nabiga kaleey salaam wuxuu yiri almu'minu qofka mu'minka ah يوم القيامة مركي لقار وحو أهانيا في ظل صدقته صدقتي سهر كذا وقلايا إلهي عردي سيكدمين إيسا محيدها أن قبورت كل لذا كجربوا إلهي سبحانه وتعالى وخوجنا مركولا ليال صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وحي هنجري المركي سيدان وكالي النبي عليه الصلاة والسلام خيرك وباهيو هذا خيرك لدى جرين إلى أرض جرين صحابي وجليل سنة وعن سنة وحوها أبو طلحة نكي لديه جري أنس أيا ورينا حديث حليه كان أبو طلحة رضي الله عنه أبو طلحة وحوها أكثر الأنصار بالمدينة مالا أنصار مقالة مدينة دقنيت نيك وحو لبطنا أيوها ويلب وحوها وكان أحب أمواله مالكي ستن لو وجع لها إليه أسي حقي سبيروحا بيرتي لديه جرائيات ويلي بيرتاس وحي اهتمت يعني مستقبل المسجد مساجد كمت قابل سنة كسهر جيد بيات نبي عليه الصلاة والسلام أيا قل جري بيه وعب جري بيه في عنوات وخوبا أي لهد جيد في عنو الله يرقلا ويلهد مركا أنس وحيري فلما نزلت هذه الآية أيضا أنت مركا يسودك قول المولى جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون مركا يسودك أنس أبو طلحة واستاغي وبحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي حقي سوء ذي وحيري أبو طلحة رسولك قالوا إن الله يقول في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون إلهي سبحانه وتعالى وحليه لن تنالوا البر سمم قاريسان إيواناك حتى تنفقوا مما تحبون إلا تكبح سان وحا أجعشين مركز وحيري أبو طلحة وإن أحب أموالي إلى بيروحا أني حوله تل وجعلان وبيرت بيروحا بويري وإنها صدقة لله بيرتاسي وصدقة إلهي درتيسان أبحي بويري أرجو برها وذخرها عند الله إلهي با وحن كرجينا يا وناقي ذي كيت كذا إلهي سبحانه وتعالى أكتس فضعها يا رسول الله رسولك الله وديك ودجي حيث شئت مال على ما يشاجك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام حويري بخن ذلك مال رابح ليوانت بويري كاس ومال يعني ومال أما
ama xoolo oo lagu faa'iido waa tijaaro lagu faa'iido marka walaalayaal waxa la rabaa markii sidaan oo kale khayrka loo maqlo in yaani lala soo daadago khayrka waxa awood maanta hadan ma ugu sii jirto waxa lagu naadinayaa ilma agoomana dhar loo gadir waa la cisiin waa lagu leeyahay hadana adigoo maqlayo oo hadana ilaahay xoolo uu ku dhiibay hadii dhaga iska sii tirto dhibkeeda ay leedahay marka insha Allah halka dollar nuska dollar maxay dhahan $5 sadaqada sorta maalka ma dhamayso ee way kordhisaa hal laga soo faa'iideyso marka gabadha $46 dharkeeda u cisiin kartaa lagu yiri waa idin sheegay hadii baasha la kala qaado oo min ruux $1 oo qabsado 46 qofood way u gadi karaan wiilkan $35 la dhahay $35 sadishan ruuxa qaadan karto ama hal qof oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala qalbigiisa oo iimaanka galiba yaani qaadan karo marka insha Allah walaalayaal sadaqadaasi aan ka soo faa'iideysano sababtoo sadaqada nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamay in ay burhaan tahay ruux bini aadamku uu kaga gaashaamanayo qiyaamaha dhibaatada jirto iyo qabriga dhibaatada jirto ogow qabriga koob meesha lagu dhigayo gurigaaga u horeysa meesha hadii meesha ka badbaadito Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu kaaga ilaaliyo kuleelkii iyo dhibkii jiray meesha sadaqada uu kaaga ilaaliyo acmaasha kale ku dambaysan way ku fudaanaysaa marka insha Allah walaalayaal sadaqadaasi aan la soo daadagno qof kasta kaga doorsado Ilaahay subhanahu wa ta'ala wax alla wuxuu ka tabanaa hadii uu xanuun jiro xanuunkaas kaga doorso Ilaahay subhanahu wa ta'ala kaga bari inuu kaaga qaado kunka shilin maanta aad bixinaysid hadii uu xanuun ku hayo u neeyeeso inuu إلهي سبحانه وتعالى وكاغا قادو إلى النبي عليه الصلاة والسلام داو مرضاكم بالصدقة حنوندينا كداوي أما حنونكو كوها إسكاغا داوي صدقة ماداما فرمشية ميلا ساورديسو يعني $1 لعك إي كاغا بحيسو هدي أتنيستيت أو قلبي سليم أطلقت ماضو أو روح مسكين أتسيسو أما أقول أتوح كترتو إنو إلهي سبحانه وتعالى حنونكو كاغا قادو $2 وكاغا قادو يا مركولا ليال إن شاء الله مال كان وردمانا يا ما عندكم ينفد وما عند الله باق وحي ذيك أكتين يالو يدمانه ولا ليال لكن إلهي وحي أكتس يالو باقي بي أهاناي مرك وحي أديك أتمانت إلهي أكتس أديكتو أدبركم المريسة بحسنيسا صدقاتنا ما أنت أدمل لغنيس ما أنت أدب بحينيس تغف باهنا سينويسا بير أدا قادنيس ما أنت أنا أغو باهي بدنتا بيرتو بير أغو باهي بدنتا ما أنت حغير ودخنقاقات ليدا هو شقيستا dhaqaalaha ku soo galo dhaqaalahaada waxa dhici kartay in uu kugu filan yahay laakiin aadan ogeyn bir wixii wax kaaga taray marka walaalayaal maalka kan aad biri Ilaahay agtiisa hormarsatay wax kugu taray kan adduunyadaada aad ku baashaashiyo adduunyada aad aaga tagtiyo dhaxaltooyadaada aad u reebtiyo sidii rabo laga yeeshanay kaas faa'iido kuma laha marka walaalayaal insha Allah nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamay ruuxa bini aadamka hadii uu dhinto inuu amalkiisa uu go'aayo laakiin saddex ruux amalkooda uu soconaya sadaqa jaariya kamid ah ilmun yuntafacu bihi oo waladun saalihun yad'u lahu marka sadaqa jaari ma samaysatay xoolaha hadii leedahay sadaqa jaariya oo ku soconayso adigoo qabrigaada ku jigo dhinsan sadaqa ku socoto ajirkeeda ma samaysatay maya ka qayb qaado masaajidaha la dhisaayo dugsiyada la dhisaayo agoontaas la garab istaagayo dharka loo gadaayo masaakiintaas waxa la siinay ka qayb qaado si uu Ilaahay subhanahu wa ta'ala sadaqa jaariya uu kaaga dhigo hay ilmun intafacu bih ilmi lagu intifaacsado ilmi hadaad barato dad kale asii barto Ilaahay subhanahu wa ta'ala ajirkiisa wuxuu kugu soo haleeshiinaya adigoo godkaada ku jiro walad saalix dhashay canug suuban oo wanaagsan tarbiyadiisa aad hagaajisay waa ku soo duceynaa maalin kasta duca ka dhargeysa Allahumma ighfir li abi wa ummi kulli Allahumma ighfir lil muslimiin hatta uu duceynaya beer canugaas yaa ku dadaal adaa tawbari marka walaalayaal insha Allah bishaan aan ka faa'iideysano runtii xaqiiqo waa gawgawa cimrigeena sidaas oo meenis ugu socdaa maanta waa toon bay maraysaa bisha Ramadaan sababta Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay ayaaman macduudat wa maalmo la tiri waa bisha Ramadaan waa maalmo 30 ama 29 maalmood ay noqon kartaa marka maalmihii sida loo tiriyay 10 maalin baa ka tagtay 20 ama waxa ku dhiman 19 maalmood jaaniska wiil waa ku furiyaa fursad Ilaahay subhanahu wa ta'ala wiil waa ku sii hadii ay naf kugu jirto Ilaahay wax uu ku dhiibo jaaniska faa'iideysto jaaniskaas ka faa'iideyso waa jaanis waa fursad qaali ah waa fursad dahabi ah qof ka faa'iideysan karay ma jirto ilaa ma qofku Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu waafajiyo maal marka insha Allah sadaqada aan la soo daadagno yaan lagu baqiilin maalka ittaqu dhulma dhulmiga iska ilaali buu yiri wattaqu shuha shahihnimada ama baqiiltinimada in iska ilaaliya dadkii hore
waxa halaagay baqiiltinimada ay ahaayeen wiliba waxay u geysay baqiiltinimada in ayaga dhiigooda ay ku daadiyaan marka baqiiltinimadu waa cudur uusan ilaahay subxaanahu wa ta'ala raali ka nabi maxamed nuusan ogoleen marka qofkaas insha Allah kun shil muxuu ka dhiba $1 muxuu ka dhibaya $1 muxuu ka dhiba la shan sent maxay ka dhibaysaa qof miskiin amaanta wax ugu tar awoonta ugu dar maanta ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu kaaga ilaalinaa aafaadka oo dhan waxyaabaha balaayada oo dhan buu ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu kaaga difaacaya marka walaalayaal insha Allah wax aan bixino ilaahay subxaanahu wa ta'ala markaas uu anaga uu nafaqeena hatta nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu amaanay gabdhaha guryaha joogo hadii ay wax ka bixiso biilka uu ninkeeda uu siiyay in yaani sadaqa ay ajir ay ka helayso idoo aanan fasaad iyo wax kale aan oo la jeedin nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu leeyahay ida anfaqat almar'atu min ta'ami baytiha ghayra mufsida hadii ay wax ka bixiso gabadha gurigeeda biilka uu talagalay odayga iyadoo aan fasaad iyo dhibaato kale aan agala jeedin kaana laha ajruha ajirkeeda ilahanaysa بما أنفقت وحي أي بحسي أي الله سبحانه وتعالى أجره كسينايا ولزوجها أجره نين كذا وحوليها أجرك الصوت أنك أساس الشقي مالك سمع وعو تلقى لإلمها إن لقوا بلا لقونا فقايا مركز حوير ناكتي إن واحد يكفر سميسيا نين سائل أما مسكين أما أقول أي واحد كسيسي أجر كذا إلى ده نين كان أجر كيسو ليه واحد لقى نسخامي معي صوت بما كسبوه أسيء الشقي أي أجرك كهلايا وللخازن مثل ذلك خفك فرهايها أو بقارك هاي أو ماشى عنتذا كسو بحين أسنة كذلك أجر كيسو ليه لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا قاركيس قارك كلا أجر كذا وحوالله نسخامي معي مركولا ليال هديئة مخلص هديئة أجور محسنات oo yani khayr doon ah ilmahaas hooy u noqo agoonta gabadhaasi oo $46 dharka u gelinayso suraalka ka qabo ama jooga kabaha ka qabo xarunta warbaahinta city ken waa laga qaadaya ama soo wactan taleefanka lagu sheegay furaha uu yahay 48 soo wac meel al meesha joogto lagu imaana waa laga soo qaadaya wiilkana kadalika $35 waaye waa u dhargeli kartaa waa u ciidsin kartaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala ajir buu ka siinaya ilaahay qiyaamahan waa ku marashay marka insha Allah qofka soo ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa uu dhiyo waxaan rabaa inuu yaani kaga soo faa'iideysto sadaqadan saa idin ku sheegay horta ma idin ka dhameynayso maalkana ma dhameynayso cimrigiina ku barako waayo ilaahayna xoolo idin ku barakeena insha Allah sadaqadaasi aan ka faa'iideysano bisha Ramadaan intay socoto jazaakumullahu khayran wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Sheikh Abdurrahman Abdullahi aad ayuu mahadsan yahay barnaamijkan waa gabagabadiisii barnaamijka inta nagala qayb qaadatay oo wax baxsaday dadka agoonta ay masaakiinta wax ku baxsadayba waa ay maasan yihiin inta jecel inay wax baxsadaanna waan ka rajaynaynaa inay wax soo baxsadaan barnaamijkan midkiisa xiga aniga Sheikh Abdurrahman waxa idin leenahay waqtigiisa Ramadaan Kariim si loo yareeyo oohinta caruurta agoonta rajada iyo masaakiinta ka qayb qaado barnaamijka ciisiinta agoonta iyo kuwa mudan ee shaashaakeer barnaamijkan waxa uu ku damaanad qaadayaa in sadaqadaada ay gaari doonto kuwa aad u bixisay haddaba ku ciidsi wiil agoon ah mid raja ah ama mid maskiin ah $35 si la mid ah cunuga dabaqada dhexe ama 25 si la mid ah cunuga dabaqada hoose fiiro gaar ah lacagtan waxaa loogu iibin doonaa surwaal shaati iyo kabo sidaas oo kale ku ciidsi gabadha agoonta ah rajada ah ama miskiinta ah $46 si la mid ah sida gabdhaha dabaqada dhexe ama $35 si la mid ah sida ay u ciideysa gabadha dabaqada hoose fiiro gaar ah gabadha waxaan u iibinaynaa goono xijaab shaati iyo kabo